السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين با ملك الصدق داوانسان هالكني وهمي ودعنونا وحنا عبد الرحمن ومركلة هي سلسلة دينية أركتي أبوانك هي آيها شعبية وقيبتي أفراد قيبتني ويدا هذا باشو واجي ولا وحي هاجرت الستمان كيف هالمر اللي هلو صدق دي حبيه ورزان كوي هلا لكن مدى أفراد وحي قالتي لبا ويك أما لبا ستمان ama laba toddobaad bay qaadatay ma garanayno sababta hase ahaatee waa un gantaalo ninkii cabdibaag ahaa ninkii bishaar wadani ahaa unbaa u baxay ninkii abwaan bishaar wadani ahaa baa la gantaalo kuwii xuutiyiintu tuuri jireen oo kale ah ayuu soo tuuray yaa u soo dhiibay gantaaladaas waa su-aal kale su-aashaasina waa mid idinla taalla wey laakiin hadda innagu waxaynu dul istaagaynaa midhaha eray bixintooda ujeedooyinka iyo humaagahana sidii tii hore ugu rafani kari mayno oo hawlaheeda iska badan bal marka horeysa horta aynu dul istaagno waqtiga yuusan ugu dheeraanine bal maansada aynu dul istaagno oo bishaar wadani andana bishaarow ku soco دعينا كنت معها حركوهم إسكا كاها قال كوردور كوكالي مية كما سنتاهي قرشة أبوانكم مجبي دعينه كنت معها حركوهم إسكا كاها قالين قورو الظهر كوكالي مية كما سنتاهي يا قورو الظهر كوكالي مية كما سنتاهي والابتلاء كان يدينك أرك ننكي بشهر ودنيا ننكي يراهدي دولتي بالو قفي قرنكي بالو قفي وينو في عناي وان برالينا قربان الصعانا ننكي يري وحال لغو يري هورتا ننكي على الدودة يسو قرشد يسو مينا قبل دعو حالي هذا ودانت عيرك مركا لغو تلو كل بقبل كل عضو قرشد أوانكو ما قبل دعيني قنتي ما حركو مسكا قالين warniyow maansoodin show maadan fahmin bo show toddocyadu meesha iska suran yihiin iyo ujeedkii iyo humaagtaadan garanin miyaa goor doorku galay miyaad gamacsan tahay miyaad huridaa ma qoraxda inay soo baxday ma ogid miyaa bishaar wadani cimaamadiisa waynu siinay godka maahan sadiyo dooda waahad gaftooha gud curdama ayaa hadraad ku goobaysa daayinu naayseed ku garaalahay godka maansadiyo dooda waad gaftay gud curdama ayaad raad ku goobaysaa gadda aynu nahay seed ku garan laadahay ama gadda aan maanta nahay seed ku garan laadahay yaa wuxuu yidhi niyow dooda waad gaftay oo garta maadan helin gartii waa lagaa helay waad garab martay qodobadeedii iyo meeshii loogu talagalay maadan ka dayin biyo garta gud curdama ayaad raad ku goobaysa adoon toosh wadanin baad habeennimo hamatul hamag baad raad ku raadinaysaa sibay raad habeennimo loo arkayaa gadda aynu nahay saad ku garan laada oo kaalay mataad ogaa ina gaadhay baad iminka garan laada yaa فرسفها قد ما ذيك هذا الهو كنوقن هذيكها قحدانها كقويهن رجل سامر قوضوني مالك وقرقاها نيادا halkan xoogaa samirsiin ayuu siiyo wuxuu yidhi fursadaha gedmaday gadaal ha ugu noqon meesha majaro ka lumay waxba mataqaana dib ha ugu noqonin hadday gaagaxdana ha ka goyn rajada hadday kaa gaagaxdana mar kale ku godan doontaa ee rajo dhigin samir gobannimo leh ku gargaar niyada yacni samir taaciba waa lama doonaya samir dhab ah qaado oo samirkaas ku gargaar niyadaada yaa tanna waa samirsiin uu u dejiyey labadii gantaal hore intuu tuuray buu kan iyo dhulka u dhigay bal haddaynu kooraska aragno meesha la isugu yimid ladii godobiyo qabihi lama kala karte waqtigaha kunehe garan lahaa
iyo duruufaha guraaca godmanagu rideen garab rarata waa guuraa ma degto qurbahana waxaa laga yidhahdaa homeless ya laniga wuxuu yidhaahday ha ku gafin ba ku yiri moogtahay dowlad goboleedyadu inaad ku gafto oo reer iyo qabiil iyo waxa ku tiraahday waa gaf iyo maxaa iska galay buu soo yiri ya maxaa iska galay dowlad iyo qabiil maxaa iska galay iyo moogtahay qoladana waxay dhaheen garab raratadii iyo dowlad goboladii iyo godob iyo qabiil lama kala gartee garaadlaawo iyo duruufaha guracan godma nagu rideen yaa warwaasee warbaldee maxaa eray cusub meeshan kuma jiro godobna waa la garanayaa garaadlaawona waa la garanayaa garab raratana waa guuraa ma degta wey waa qof iska socdo meeluu jooga warbal horta bilbashaarow waan u soo noqon doonaaye humaagta meeshan eray cusub hadda oo la eray bixiyaa kuma jiro laakiin isagu wuxuu yidhi garab rarato iyo dowlad goboleedyada dadka mataqaana iska guuraama degtada iska socda ee iska haldhuule ee iska yaacaya bilaa hadafka ah iyo dowlad goboleedyada iyo qabiilka lamaba kala garto iyagooda iyo godobteeda midna lama kala garto kaadoo kala soc waa saala idaad iyo saala riyaad buu dhahay ya warbishaar warwaase galladeebe nasiih marbay guushu iman cirka oo gunaha marbu ku godlon waxaad galoon goshaada marbadkaha jobixi war hadda wuu yara dejiyey banooniga gallad eebee nasiib marbay guushu iman cirka oo gudhnaa marbu kuu godlani waxaad golongoshaba marbaad gaajo bixi golongolku de waa markii boggii beer hoostiisu kaa dhagaan saa usoo godatay caatowda weeyaan marka wuxuu yidhi iska samir waa kii ku yidhi moogta iska sug buu yidhi guushu way iman doontaa waa laga bixi doonaa tafaraaruqa iyo calamadan iyo geedahan sursuran iyo guryahan laysku soo xidhay iyo shanta goosanka ee meesha lagu xidhay iyo inta hoosta laga dilaalayay iyo waxaasoo dhan wuxuu yidhi waa laga bixi doonaaye ha degdegine cagta dhulka adigoo u dheg buu yidhi godobta jecel meel magaha kayehe urgumahar ha noqon qofku gooye shalay ado garan hayaha maanta soddon sano maadamaan isdilaynay wuxuu yidhi bal ummadda soomaaliyeed aan bal in yar saa ugu leexiyo ninkan laftiisana aanu caqli celiyo buu yidhi haye bishaar axad godobta jecel meel ma gaadhaye urgumaar ha noqon qofku gooye shalay adoo garan hayaa maanta garab istaag yaa urgumaar waxaa la yidhahdaa qofka cuqdada qaba ee masamraha ah ee uun juqiiqda ee 20 sano ka hor baa nina laga dilay dhahaa ee yidhaahda reerkaa waxaa naga dhexeeya mataqaanaa godob baa naga dhexaysa dhahaa ee uun wax un gacan tagaaleeya dadka un kala fandhici lah urgumaar ninkaasaa la yidhaahdaa marka axad godobta jecel meel ma gaadhayo qayrkii ma gaadhaya nin musakeeyihiisa un kala fandhicilay oo cadow kalaba aan lahayn meel ma gaadhayo ya ee urgumaar ha noqon buyni qofku gooye shalay adoo garanayana maanta garab istaag iska garab istaag adoo garanaya gobonimada ka raac goobta ahaad rabtiyo markad gaadha mehel ha garwaha qsadaha kuwi kugu gafay haragada kuntiga boqna hagagehe qaabkaad waa aragoosanayso wuxuu yidhi waa qaab xigmadaysan goobta aad rabtiyo markaad gaadha meel ha garwaaqsadaan kuwii kugu gafaye xaragada guntiga boqnahaaga gee yacni macawiista intaad shublaha geyso sidaa u xaragooto suuqa saa u dhexmar guulahaaga sidaa guulahaaga tus guusha markay arkaan cadowgaagu dee maa cadowgaaguba ma taqaanaa guushaadu waa cadowgaaga guuldarradiisa marka wuxuu yidhi bishaar war guushaada ayaaba dili waxba urgumaarnimo iyo cuqdad iyo dadkaaga iyo tafaruqa intaa iska dayso adiga oo degan un guushaada iyo horumarkaaga ayuu cadowgaagu ku dhimane
waxaa mataqaanaa dadka kala fadhi cilmi intaasi marka waa qaybtii afraad ee silsiladii aragtida abwaanka iyo aayaha shacabka waa bishaar wadani cidii u soo dhiibtay rasaastanna dib baynu ka ogaan doonaa hadduu ilaahay yidhahdo intaynu isugu iman doono qaybta shanaad waa aniga oo cabdiraxmaan iyo bahda hamidowdo oo idin leh hamidowdo hana israacdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh